مرحبا مقشع الله عيب تعصر عيب ما عصرنا وزارة gaashaandhigga Mareykanka waxay soo bandhigeen liis rag argagixisada caawiya oo isugu jira ganacsato qabqablayaal dhammaantood garab kasta al-shabaab u sameeyay ragga Soomaaliyeed ee magacyadooda soo bandhigay dhammaantood waa hal qabiilka amaanta dhihi doona qabiilka al-shabaab ee garab taagan qabiilku noqon doona ilaa hadii rag ganacsato qabqablayaal siyaasiyiin liiskoodii wasaaradda gaashaandhigga barnaamijka ay keeneen oo la shaaciyay oo waliba dhammaantood ay hal qabiil ka soo jeedaan hada qabiilkaas waxaan leenahay qabiilkii shabaab garab taagan qabiilku noqon doona barnaamijka qaybta dambe ayaan kugu soo gudbin doonaa xalay waxaan shaaciyay hadal uu jeediyay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya haldoor hawiye geesi barnaamijka ku dhacay oo hadalka la gaban ee Cabdullaahi Samaloshi xalay hadaladiisii waa ku kululaayeen hawiye wuxuu u reebtay haba yaraatee malaha sidee shacabka uga falceliyeen hadalkii Cabdullaahi Samaloshi barnaamijka qaybta dhexe ayaan kugu soo gudbin doonaa hadduu alla idmo dhaqdhaqaaqii la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo hirshabeelle ayaad barnaamijka sidoo kale ku daawan doontaan hadduu alla idmo murusada iyo dhaqdhaqaaqii military ay wadeen iyo macawislaydii diyaargarowga ceelbuur iyo weliba wabxana barnaamijka qaybta dhexe ayaan kugu soo gudbin doonaa inta aanan marka qodobada u gudagelin maalmahan waxaan ka aamusnaa militariga jamhuuriyadda barakeysan ee Somaliland waxay la wareegeen Boocame waxa ay ku sii siqayaan caasimadii Puntland ee Garowe maalmaha sababta ugu aamusnaa waxaan islahaa bal marka hore falcelinta Garowe ka warsug ha noqon qofka koowaad ee hadla ee noqon qofka labaad ee hadla waxaan islahaa bal u babadhig ha noqon qofkii koowaad ee baraha bulshada ka falceliya ee balsug ragii ugu caansanaa ee beesha majarteen walaalahayna ee baraha bulshada ka hadla sidii uga falceliyaan waxaan soo helay marka jawaab celintii Garowe iyo baraha bulshada majarteen aan ku hormaray gudihii Garowe iyo waliba deegaanadii ku hareereysnaa oo imika aan gacanta Soomaaliland wali gelin ooyin iyo barar waa idinay dhulmahante mikrofon hortiisa ku ooyay waa idinay aniga dhulmahante ooyin kuma aqoonin waa idinay jawaabta aan maanta ka helay raggii Puntland ee majarteen walaalaheena ee Garowe aan islahaa Boocame mar haddii gacanta lagu dhigay 24 saac kaliya u qabo ayaga la wareegi doona deegaanadaas iska durji doona soo raacisho doona dhulkoodii waxay yiraahdeen walaalayaal warisaaqo gar iyo jilbaan in haysana Garowe wax loogu imaanaya waxaan sugay sidoo kale ragga saaxiibaday ah ee baraha bulshada ee ugu caansan beesha majarteen raggii gacmaha isla yiraahdeen waana raganimo xumo qofka hadduu gacmaha taago lagama sii dabaxo waxaan leeyahay aniga hadalkii waan joojiyey mar haddaad tiraahdeen kaftanku waa naga xariya naga daayay gantaalada gacmihiina aad kor u qaadeen ragga saaxiibaday waxaan leeyahay haddaan idinka daba hadlo anigana asoobaya intaa aan uga tago marka sida guud ee falcelinta Garowe iyo saaxiibadii baraha bulshada ee majarteen waxaan rabaa inaan la hadlo jamhuuriyadda Somaliland waxa ka go'an sida hadda saraakiisha ay ku waramayaan in soorintii Ingiriiska uu u calaamadeeyay dhulkan hadda la isku yiraahdo Somaliland inay halka tagaan ma ku saxan yihiin jawaabtu way kooban tahay ha maxaa yeelay qof walba inuu soorintiisa tago waa ku saxiixin boqolkiiba ma jirtaa culays hadda dadkii deegaanka Boocame u badnaa kule waa la isoo yaqaanay ay kala kulmeen jawaabtu waa maya ragga deegaankaasi degan waa rag dowlad ku nool ah waxayna ku qaracsan yihiin dhaqaaqaas iyo waliba ku durqista ay ku durqeen dhulkaasi Somaliland hadda aniga wax doodo oo dhulmahanta ka xaggiisa ka soo yeeraya ma jiro inta ka badanna kulli intaan diyaarsaday waxaan dib u celiyay markii saaxiibada ay gacmaha taageen inta ka dibna waxa weeye ninka ragga marba uu yiraahdo waa isdiibay faraha laga qaada lagama sii dabaxo waa nacasnimo intaas la gudbaya aan soo noqday
argagixisadii al-shabaab iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay intaanan wararka qaybta hadday ahaan lahayd la dagaalanka al-shabaab hirshabelle intaas u gudagelinaya cabdulaahi sabalurshe liiska wasaaradda gaashaandhigga waxaan ka hormarinayaa digniino qaraxyo laga baqdin qabo caasimada soomaaliya ee muqdisho mar kale argagixisadu inay ku qaadaan digniintan muhiim weeye fadlan muuqaalka sheegree fadlan muuqaalka ku sheegree facebookkaaga whatsappkaaga si digniintan dad badan ay ku badbaadaan ilaahay baa wax badbaadiya argagixisadu waxay maleegayaan qaraxiyo gawaari yaryar ayaa la soo buuxiyey laamaha sirdoonka dalkana waxaan leeyahay gawaaridu hadda shabeellada hoose ku sugan yihiin walaalayaalow maanta waa 3 November muuqaalkan barnaamijkan wuxuu ku jiri doonaa facebooka ka hortaga shabeellada hoose hadda ku sugan yihiin waa gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey gawaaridii waaweyned waa lagu fahmay al-shabaab hadda waxay bilaabeen gawaari yaryar mootooyinka bajaajlaha ah bajaajlayaasha ama mootada bajaajka in ay qaraxa soo geliyaan gawaari yar u adeegsadaan gawaaridii waaweyneed waa lagu fashilmay waa lagu fahmay marka iska ilaaliya bajaaj iyo gawaarida yaryar ee raaxada hadda shabeellada hoose joogaan qorshuhu waa moolka la yidhaahdo xayaat ilaahay ha ka najeeyo qorshaha labaad waa mid kamida wasaaradaha dowladda federaalka Soomaaliya qorshaha saddexaad waa mid kamid ah hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho ilaahay ha ka badbaadiyo ilaahay cadowgaasi ummadda reer Muqdisho Allah ka qabto waxaan leeyahay laanta sirdoonka dalka hurdada ka toosa waa hurdada ka toosa laamaha amniga waxaan leeyahay ka hortaga waa cadow waxay ku soo socdaan Muqdisho maalmaha lagu soo aadano qorshuhu yahay digniintan maanta waa qabtaan wixii dhici doona ilaahay baa og annagana waa ku sii dadaali doonaa saaxiibada Soomaalida ah ee daawanaya barnaamijkan waxaan leeyahay sheergareeya oo la wadaaga asxaabtina meel kasta oo aad joogtaan waqtigu haydin u canaado muuqaalkan iga sheergareeya muuqaalka waxaan xalay sii daayay hadal Cabdulaahi Sabalurshe oo ka sheegay meel fagaara ah waxaan qarayaa inuu yahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan qarayaa inuu yahay ragga ugu geesisan beesha hawiye hadalkiisuna uu yahay hadal kulul runta aan weligii ka gambar Cabdulaahi Sabalurshe waa ku aabisanahay hore u soo wuxuu yiri doqonnimo dhan hawiye hoostaala ma runtiisa ha sabab madaxweynuhu hawiye waay taliyaha ciidanka xoogga dalka waa hawiye madaxweynaha hirshabelle waa hawiye madaxweynaha galmudug waa hawiye haddana shabaab iskama qaban karaan war ma doqonnimo taas ka daran baa jirta ilaahay baa idinku dhaariyey doqonnimo intaa ka daran oo hawiye lagu tilmaami kara maanta ma jiraan galmudug iyagaa madaxweyne ka ah qorqor waa hawiye madaxweynaha hirshabelle waa hawiye taliyaha ciidanka xoogga dalka waa hawiye gudoomiyaha gobolka banaadir duqa Muqdisho waa hawiye madaxweynaha jamhuuriyadda waa hawiye haddana shabaab iskama qaban karaan waxa weeye hadal xaq ah oo sax Cabdulaahi Sabalurshe sidoo kale wuxuu yiri hawiye markaa tirada dagaalka gala waxa waaye mid walba wuxuu ku leeyahay dhulkayga lama gaari bal xaasinimada hawiye ay isku qabanayaan dudubna waxay leeyihiin dhulkeedii lama gaarin mar aadi karno waa xaasinimo hawiye gudihiisa mursado wuxuu leeyahay dhulkayga lama gaarin ama aadayn abgal wadu jeedaan wuxuu halkaas soo dirdiloomaya wadu jeedaan masaajid cali guduud ay ag fadhiya ilaa wali maalintay qabteen ilaa hadda 5 maalmood waxay joogaan masaajid cali guduud haddii abgal gudihiisa aad eegto waxay ku leeyihiin wacbuudan dhul harti abgal la haystay anaga dhul maana laga haystaa harti abgal gudihiisa qaarkood waxay leeyihiin dhulkeena xor waaye maxaa naga gala dhulka kale la haysto doqonnimo intaa ka weyn ma jirto Cabdulaahi waa saxan tahay Sabalurshe waa saxan tahay falcelinta dadkii comments-ka dhiibtay oo dhanna waxay sheegeen Cabdulaahi Sabalurshe inuu saxan yahay aniguna qarankan ku duubo waxaan leeyahay Sabalurshe waa saxan tahay dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey la dagaalanka argagixisada al-shabaab horta al-shabaab waa jabay waxa u dhiman waa rafashadii ugu dambeysay dhawaan waxaad maqli doontaan haddaynan waxba isbedelin afayeenka al-shabaab oo dhahaya tactica military ama tactica dagaal awgeed waxaan ka baxnay galguduud iyo shabeellada dhexe waxay ku dhihi doonaan sabab la xiriirta farsamo dagaal ayaan uga baxnay cali dheera dhawaan hadalkaasi sheegi doona maxaan ku iri sidee baan hadalkaasi ku keenay maxay tahay waa soo koobaya al-shabaab ma sii joogi karo shabeellada dhexe shabaab galguduud sii joogi karana bejir wabxo iyo ceelbuur raggii mursadeed
ayaa ku sii jeeda mursada meel uu yimidna wallahi inaysan shibri ka duuli karin البور إيو وبحو إيو هدو الله كو إدما يقلقدود يانا كالريبين حديب القلقدود ودن أي كسو بحان أبقى اسمانا مساجد القلقدود وكسو بقابه إنو أفاياك الشباب هذي الدورة إد أنيق إقدام يسهوي دينيها وحونا نيه دولا سبب تقال إيا وبحني قلقدود يشبه لذا نحي وانا صور نقضونا بنتي سنواي ما صور نقضونا لكن وافر سمو تاتك دادك الوقف سجري دونا maalin kastana waa ku celcelin doonaa maalin walbana waa ku celcelin doonaa maanta dagaal ba'an ayaa wuxuu dhex maray ciidanka dib u xoreynta walaalaha xawaale iyo weliba argagixisada al-shabaab saaka ciidamada dowladda lama jirin dagaalkii argagixisada ay la galeen geesiyadii xawaale waa lagu jibiyey al-shabaab meydadkoodii baa lagu soo warramaya iyagoo wadooyinka yaalyaala tuulo ku dhow degmada aadan yabaal ayaa al-shabaab saakay si gaadma ah loo galay dhinacyada laga maray iyagoo saakay markii iska quraacanayo oo qabaarmoog ah ayaa ciidankii xawaale waxay kala dul dhaceen hadba intii huba ay gacanta ku hayeen saraakiil ka tirsan macawisleyda waxa ay u sheegayaan barnaamijkayga in ay jiraan jab xoog leh oo argagixisada halkaa ka soo gaaray ciidanka macawisleyda ayaanan la kulmin wax iska caabin ah maadaama marka hore ay gaadmo ku socdeen hubna aynan u diyaarsaneen maleeshiyada al-shabaab waxay leeyihiin dhaqan yaab leh maxaa yeelay ciidan ma aha mana tababarno waa iska maleeshiyaad al-shabaab waxa weeye markay cuntaynayaan ma yaqaanaan inay iswaardeeyaan dhaqankaasay leeyihin isma waardeeyayaan cuntadaasay wada cunayaan waa iska jabhadna waa taqaanaa mar alle iyo markay meel imaanayaan iska wada fariisanayaan waa laga dul imaanayaa marka laakiin qofku markuu tababaran yahay wuxuu samaystaa guuto cuntaysa iyo guuto waardiyeysa marka sidaas ayaa looga adkaaday tuuladii degmada aadahaya baa ku dhoweydna gacantaa looga hayaa walaalaha afghanistan waxay ku shirbayaan meydadkii argagixisada al-shabaab مساجد على الحدود طريق أيو قليل وماشي كلية اللي قدر المرقرة شن بقول أو سراكيش السريع الشباب سبحان الله وحين تنجس الموتى برشة الرير مساجد على الحدود ويلش أبقى اسماني جيسيا أنا وحي كدور قردريا كدور شربيا ميدتك هلكا رجع هو عن صريح هلكا تري وحاكم ده أحمد داعي